dimuqraadiyaddu waa iftiin hagaya mustaqbalka ummadaha waa tiir ay ku taagan yihiin cadaalad xorriyad iyo horumar waara maanta waxaa nasiib u leenahay hogaamiye si dhab ah u fahmi kara qiimahaasi una heelan hirgelintiisa waana Shariif Xasan Sheekh Aadan Shariif Xasan waa haldoor siyaasadeed oo leh waayo aragnimo qoto dheer aragti fog iyo biseel hogaamineed oo la hubo khibradiisa dheer oo siyaasadeed waxay siisay awood si hufan uga garto baahiyaha shacabka iyo in jihada saxda ah ee dalka loo jihayn karo maanta iyo mustaqbalkaba waa hogaamiye lagu yaqaan dulqaad dhaxdhaxaadnimo iyo karti uu ku midayo bulsho kala aragti duwan wuxuu cadeeyay in dimuqraadiyaddu aysan ahayn arayo kaliya oo la qurxiyo balse ay tahay ficil dhab ah ficil ku dhisan cadaalad wada tashi tiraan buuxa oo la siiyo codka shacabka taasina waa sababta uu ku kasbaday kalsooni ballaaran oo kaga helay bulshada dhaxdeeda عاك سدح ليه هو بالدين سلك شوف أفكار ملك له كماري ما يكجر جداجي ملك كورمر سنگ نماي كورنينو كماري ما حسبي أو هويه هو سكوبوه كورنا روم كوكيني يروج كاسان ينكو دور نفدان إن كارك اللي قاعد وقت اللي رمياو أما اللي هم بهاو أما سفل جلاو أما ما دي والله دور ده سفل جلاو اللي وين سنة لان على لان كار قاعد إس أبابولو ميلوس أوجي يو إسكو أبابولين aragtido keen iyo walka doorada haana say guulaysadaan hogaamiyaha dhabta wax lagu gartaa aragti fog iyo himilo cad daacadnimo iyo hufnaan sare go'aan qaadasho geesinimo leh oo cadaalad ku dhisan u adeegida shacabka si siman oo aan kala sooc lahayn dhisidda midnimo iyo wadajir qaran dhammaan sifooyinkaasi waxa ka badan waxa si buuxda u leh Shariif Xasan Sheekh Aadan hogaamiye lagu kalsoonaan karo laguna aamini karo mustaqbalka ummadda reer Koonfur Galbeed muwaadin codkaagu waa fursad dahabi ah oo aan la dayici karin codkaagu waa awood waa horumar waa mustaqbalka ifaya uu coday Shariif Xasan Sheekh Aadan xaliyay dimuqraadiyadeed hogaamiye khibrad sare u leh siyaasadda dalka sidoo kale waxa uu taagan yahay astaan horumarineed oo dhab ah wadajir ayaan ku gaari karnaa guulo iyo mustaqbal ifaya